farmaajo waa diiday waddankan inuu ka qabto doorasho xor ah oo xalaal ah. farmaajo wuxuu sameeyey guddi doorasho oo nabad sugid ah, wuxuu sameeyey guddi doorasho oo ah shaqaalihiisa gaarka ah. beeni mayno beeni mayno beeni mayno beeni mayno beeni mayno beeni mayno.
farmaajo waa madaxweynaheennii oo ahay laakiin hadda wuxuu noo sheegayaa inaanan dalka ku aamini karin shalay toole dadkii doortay oo u bannaan baxay shacabka muqdisho ahayd maantana annagoo shacabka muqdisho eh ma doonayno farmaajo dalkeennana uma doonayno burbur haddii dalka wixii lagu heshiiyey haddii dastuurka la baal maro waxaa imaanaya burbur annagana haddaan shacabka banaadirnaana burbur ma doonayno doorashana kuma aamini karna farmaajo laguma aamini karo farmaajo laguma aamini karo maanta waa maalin weyn waa maalin aan raadinayno masiir doorasho qoraxda aan u taagannahay shalay 2017 farmaajo saan ugu banaan baxnay saan ugu soo dhaweynay ma ahan dalku inuu qalqal iyo amni darro oo gelsho waxaan u taagannahay qoraxda in doorasho sax ah oo xalaal ah oo xor ah ay qabtoonto waxaan u sheegaynaa madaxweyne farmaajo maanta madaxweynaha ku leenahay madaxweynaha ku leenahay magacaaga madaxweynaha maanta leenahay beej calan waa ku aqoonsan inta madaxweynaha lagu dhihin waxaan ka codsanaynaa dalka in doorasho gaartiiso sida ay wada ogtihiin 10 bishan November December ee nagu wada jirno waxaa ku ekaa aqalka sare in la soo gabagabeeyo isbuucan gudihiisana loo dareero xubnaha baarlamaanka farmaajona soo ma wado ugama jeedno ugama fadhino kama sugayno farmaajo waxaan u sheegaynaa wixii dhacay 2012 uu ogaa oo xasan sheekh shariif axmed halka loogu wareejiyay sidoo kale wuxuu warqaati ka ahaa 2017 sidaas loogu wareejiyay waxaan codsanaynaa si taalamida 8 Febraayo 2022 inuu dalka sinada u wareejiyo haddaanu u wareejin wixii dhaco asaga kama fiilo bismillahir rahmaanir rahiim bismillahir rahmaanir rahiim maxamed cabdullaahi farmaajo shalay waxaan ku soo dhaweynaa nabad iyo wanaag waxaan ka filaynaa kamaan helin wuxuu noqdo keligii taliye xukun boob ah ma doonayna farmaajo ha naga dago ha naga tago dalka yoosan burbur iyo dhibaato noo horseedin waddan nabad oo u yimiday ha ka tago ma rabna farmaajo ma doonayno mana doonayno habaar qaba lagu sirma waaye ma rabna farmaajo banaanbaxayna waxa uu taagidkiisu yahay xukunka boobka ah oo doorashada boobka waaye ma rabna farmaajo mana doonayno mana rabno ha naga taga farmaajo hana naga taga shalay annaga soo dhaweynay maanta annaga soo dhaweynay maanta annaga nacnay shalay annaga soo dhaweynay maanta ma rabno bas waay waxaan ka filayna macaan keenin dadkii naga xiray maantadii naga laayay dadkii naga laayay 14 October waa ogaadeen inta ku dhimat waxa ka qabta malahan maalin walba saasa dadka loo laaya farmaajo ma rabna ha naga taga hana naga taga farmaajo ma doonayna farmaajo bismillaahir rahmaanir rahiim anaga waxaan ahay dhalinyarada Soomaaliyeed halkan waxa uu soo istaagay in aan muujino shucuurteena in aan raali ka ahayn doorasho boob kilitalis inuu yahay farmaajo dhalinyarada Soomaaliyeed waddanka badbaado u maayay farmaajo must be out farmaajo must be out farmaajo must be out farmaajo down farmaajo down farmaajo down farmaajo down saaki waxa u soo baxnay inaan shucuurteena muujino hadana dhan Soomaaliyeed wadanka dimuqraadiyadiisa ma jirto waa la lunsaday dastuurka waa la laalay farmaajo sida doono yeelaa doorashadan waxay qor isku dhiib shalay Sheekh Shariif asaga waa wareejiyay doorasho qabtay xasan sheekh uu guulisay xasan sheekh si sharaf leh ayuu doorasho qabtay farmaajo asoo boorsiis wato garoonka soo dega doorasho gale maanta inuu qir geliyo doorashadii annaga wadankan anaga dhalay u dhalnay ma rabno dib u dhac ma rabno kor xuquuqdeena anaga lagu tumayo farmaajo please master be out iska bax wadankan boorsa ku timid maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu muwaadin Soomaaliyeed oo qalbi dhagax la yiraahdo u dhiibay dawladda Itoobiya shacabka Soomaaliyeed waa ka aamuseen arrintaas kow maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu ku duulay maamul goboleedyada wuxuu ciidamo ku qabsaday gobolka Gado maxamed cabdullaahi farmaajo magaaladan Muqdisho waa xiriyay 4 sano magaaladan waa xirnayd gabdhaha waxay ku mulayeen jidadka iyo laamiyada meeskana waxaa lagu duugay garabka waa la socodii Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo maalin maalmaha ka mid ah kuma dhaqmin dastuurka dalka wuxuu weeraray siyaasiyiin wuxuu kobahooda ku duugay askar Soomaaliyeed ayuu kobahooda ku duugay shacabka Soomaaliyeed waa ka aamuseen ma la socotiin maxamed cabdullaahi farmaajo
wuxuu baabi'iyey ku ciyaaray dawladnimadii wuxuu rabaa hadda inuu waddanka dumiyo wuxuu rabaa doorasho booba inuu qabto wuxuu rabaa in guddi doorasho oo nabad sugid ah inay soo doortaan xildhibaano nabad sugid ah oo asaga taageerayaashiisa ay ku jiraan wuxuu rabaa xildhibaanadaas inuu haddana doorasho inta ku galo waddanka uu mar labaad qabsado maanta waxaa la joogaa dhammaadka kacaanka dawladda farmaajo waa la joogaa kacaan waaye kacaankaas inaan ka taxadirnaa la rabaa 21 sano oo cusub oo xukun ah dooni mayno 21 sano oo xukun ma doonayno dictatorship ma doonayno ma aqbalayno doorasho aan heshiis lagu ahayn ma aqbalayno doorasho aan heshiis lagu ahayn ma aqbalayno doorasho aan heshiis lagu ahayn bismillaahi raxmaani raxiim annagu ah ummadda degan gobolka banaadir waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegaynaa haddii aan nahay shacabka gobolka banaadir waxaan maanta fagaaraha u taagannahay gudaha magaalada muqdisho in aan cadeyno shucuubteena ku aadan doorashada sida wada ognahay annaga waxaan nahay dad cashuur bixiyaala madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo si sharaf leh ayaa ku soo dhaweynay wixii shacabkan ay ku soo dhaweeyeen iyo waxay ka sugayeen ma aysan ka helin wax badan ayaa loogu soo sabray haddii ahaan leeda xagga amniga haddii ahaan leeda xagga siyaasadda dibadda haddii ahaan leeda xagga dhaqaalaha dalka haddii ahaan leeda xagga shaqo abuurka 4 sano ku dhowaad wax uu ka qabta ma lahan intaas waa loogu soo sabray hadeerna wuxuu u soo tafaxitay inuu boobo doorashadii qaranka Soomaaliyeed ka dhaxaysay shacabka Soomaaliyeedna gaar ahaan shacabka gobolka banaadir maanta arrintaas ayay u soo baxeen ayay ka dhidhinayaan waxay sheegayaan farmaajo inaysan rabin ayay sheegayaan shacabka waxay ku tala galeen saaka halkii saac in mudaharaadkooda bilaawaan farmaajo wuxuu ka adeejiyey ciidankii qaranka in lagu difaacan loogu tala galay oo cashuurta shacabkan laga qaado mishaarka lagu siiyo ayuu xala saqda dhaxa wadooyinka ku soo xirtay shacabka guryahooda ayay ka soo lugeeyeen xamar daafihiisa ayay iskaga yimaadeen lug ayay ku yimaadeen waxay u yimaadeen dhibaatada oo farmaajo ku hayay inay ka dhawaajiyaan shacabka anigu magacooda ku hadlaayo waxa cod dheer ku leenahay maxamed cabdullaahi farmaajo doorashada ma boobi karo maamul goboleed mid taalana ma boobi karo banaadirna doorasho oo ku qaban karo oo asiga soo abaabushay oo ciidamada nabad sugidda iyo baalkii CBB-da asiga u shaqeysay taageerayaashiisa doorasho uu ku soo abaabulo xamar maxamed cabdullaahi farmaajo inuu ku qabto xaraan bay ka tahay madaxweynaha waa ognahay hal dhagna Fahad Yaasiin baa kaga jira hal dhagna Mahdi Guuleed baa kaga jira waa la socnaa dagaha laga jiro ama iska dhaaf madaxweynaha doorasho ma qaban kartid dadkaasna kuma difaacayaan ciidanka qarankana ma dhacaysa inaad doorashadu ku boobtid shacabka gobolka banaadir ee cashuurta ciidanka laga qaado lagu bilo waxay cod dheer ku leeyihiin ciidanka meel kasta ay joogaan ha u diyaar garoobaan difaaca dalka iyo muwaadiniinta cashuurta bixisaha u diyaar garoobaan doorashada qarankana ha badbaadiyaan maxamed cabdullaahi farmaajo si sharaf leh ayaa lagu doortay waxaan diyaar u nahay inaan si sharaf leh ku sagoodino hadduu diidane asigoo bahalkii bini'aadinimada laga saara ayuu ka bixi doonaa xamar lug ayuuna uga bixi doonaa insha Allah sidaas waa inaa ogaataan waxaan caddeynaynaa haddii ahaan leedo doorasho golaha shacabka iyo haddii ahaan leedo doorashada aqalka sare farmaajo xamar kuma qaban karo haddii uu ku qabtana shacabka iyo ciidanka qaranka wada jiro asiga ayay soo qabanayaan waan u sheegaynaa doorasho laguma aamini karo farmaajo doorasho laguma aamini karo waa dictatorship waa kalitalis doorasho laguma aamini karo farmaajo ha dhaco farmaajo ha dhaco farmaajo ha dhinto ha dhaco ha dhinto ha dhinto ha dhinto ha dhaco ha dhaco farmaajo ha dhaco waxaan ka rabnaa shacabka Soomaaliyeed dal iyo dibad meel kasta ay joogaan halganka loogu jiro dictator farmaajo in dalka looga bixiyo ha ka soo qayb galeen doorashada waxay u taallaa shacabka Soomaaliyeed ayaga ayaa ka tashanayo sida la wada arki jiro doorasho wada ogol ayaa xamar ka dhacayso farmaajo in la iska qabto in laga hortago doorashada oo boobaya ay shacabka diyaar u yihiin diyaar ma u nahay farmaajo soo diyaar ma u nahay shacabka Soomaaliyeed waxay ku soo baxeen
bannaanbax nabadgelye ah aysan wax ku dhibaataynaynin cashuurtii laga qaaday dalka lagu dhisay aysan ku burburinaynin laakiin bannaanbaxan wuxuu daaran yahay dictatorka farmaajo iyo kooxda maafiyadu la shaqayso in looga hortago shacab iyo ciidan Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Muqdisho joogana diyaar bay u yihiin dadka dibadda joogana codkooda saaka anagoo og inuu 17 degmada ciidan la dhigay u soo baxay inay shucuurtooda muujiyaan ma ku haysan doono farmaajo jidadka uu xirayo magaalada Muqdisho farmaajo madaxweynaha aad ogtihiin waxa dalkan loo dhiibay isaga oo 21 December ka soo degay Muqdisho 8 February madaxweynuhu ka noqday taas waxaa ka mid ahayd tanaasulkii iyo dimuqraadiyadii madaxweynayaashii ka socday ay soo wadeen maxamed cabdullaahi farmaajo waa u sacbinay 4 sano madaxweynihii qaranku ahaa wuxuuna ahaa geed qaraar waxaana ilaalinaynay 4.5ka iyo nidaamka dawladnimo iyo cidda timaada inay 4 sano dhamaysato maxamed cabdullaahi farmaajo waa madaxweynaha Soomaaliya ilaa 50 maalmood soo socota samarkay dhamaato waa madaxweynihii hore Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo dalkii loo dhiibay shantii maamul iyo caasimadii iyo maamulka umma siyaasadeed ee isheeg Somaliland maalikii lagu wareejinay wada hadal u socday shantii maamul ee loo dhiibay wax kama hayo uu kala diray qola kastana wuxuu u sameeyay qola isaga qowsaaro ah oo reer gareen la dhaho intii kalena wuxuu sameeyay gobolkii banaadir xaaladiisa meesha maraysa 4 sano waa ogtiin maxamed cabdullaahi farmaajo hadda waxaa la joogaa waqtigii doorashada uu qaban lahaa uu ku guul daraystay ummadda Soomaaliyeed doorasho xal iyo xalaal inuu qabto waxaan leenahay madaxweyne cid kugu aaminaysa doorashada qaranka male maadaama wiilal adiga adeegayaal ah oo CBB ku ah oo adiga aad soo xulatay askar aad dhahday guddi doorasho waaye annagana markaan kuseen ka keenay aad diiday inaad bedesho saacadan laga bilaabo wax doorasho oo dalkan kugu aamin doona ma jiro waxaa kaloo fariin u diray maamul goboleedyada saddexda ee uu xareystay ergooyinkooda ciidanka u badan iyagana cid gaar ah ay doorasho ku hayn karaan ma jirto magaalada Muqdisho kama dhici doonto doorasho aan loo dhamayn oo Soomaali raali ka ahayn magaalada Muqdisho doorasho xaaraan oo farmaajo ku boobi kara kama dhici doonto haddaan nahay shacabka Muqdishaawiyiinta waxaan leenahay arrinta maray kula gudboonayd waa ku guul daraysatay afwan banooniga dhaxda soo dhig isaga tag siday shacabku sheegayaan dalkuna doorasho cidii ka qaban lahayd Soomaali ha ka tasho waxaad ogtihiin wuxuu sameeyay 3 maamul goboleed gudiyadoodu xareystay dalkuna waa 5 maamul goboleed iyo Soomaaliland oo maqan oo iyadana dadka meesha ku matala uu ka diiday inay soo xushaan gudigooda ma dhici doonto dhagaha beenta ah ay u sheegayaan kooxda dhadhamada uu siiyo iyo kooxda CBB-da ah oo 4 sano qarashka dawladda ku bixiyay inay isaga u sacbiyaan oo u maleeyay isagu inuu dawladii yahay oo isaga u maleeyay inuu yahay wax kala haya cid ka yeelaysa male madaxweyne farmaajo wuxuu ku fashilmay hogaaminta dalka 4 sano dulqaadkii uu sameeynay iyo xishoodkii wuxuu u maleeyay nacasnimo nama hogaami karo keligii wadani nama hogaami karo nin kale tanaasulka ceeb u yaqaana nama hogaami karo nin group Soomaali ah ninkii ka horjeeda cadawga Soomaaliyeed u yaqaana wadaninimada Soomaaliya dalka iyo dadka waa la wada leeyahay doorasho loo dhan yahay bas aan dalka laga qaban kara caasimada waxa uu tahay ummadda u dhaxaysa cid laga yeelay kaligeed inay doorasho ku boobtana ma jirto shacabkii doorasho waxa fariin u diraya ciidanka qaranka oo ah ilaalada shacabka Soomaaliyeed waa inay ka qayb qaataan isbedelka farmaajana farmaajo dhagaha loogu wada sheegaa dhammaan intay nahayba inaana dalka inuuna doorasho Muqdisho ka qaban karin uu boobayo wiilasha ciidanka qaranka waa wiilasheenii iyo cashuurteena mushahar u ah farmaajo wax gaar u keenay ma jirto cashuurtana waxa qaadi doona madaxweyne waqtigii ka dhamaaday ama muxuu ahaayay madaxweyne kaligii talis oo kaligii wadaniya cashuurta ma naga qaadi doono ma yeeli doono in la boobo cashuurteena dalka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed laguma baabi'in doono farmaajo fadlan waad ku fashilatay doorasho xaq iyo xalaal inaad qabato haddana doorasho kuguma aamini karo fariitanada wiigii la soo dhaafay haddaan nahay aqoonyahanka gobolka Banaadir waxay ahayd doorasho qabo maanta waxaan ku leenahay doorasho ma qaban kartid waad ku fashilatay afwan iska tag afwan cidii ay qusayso ee kala lagu wareejinaya Soomaali baa ka tashoysa iyada taqaana cidda doorasho u maamulaysa dadka Soomaaliyeed yaan la in qaldin
farmaajo shaluu yimaaday isagoo boorso wadata siduu dadka inii sheegay hadduu doorasho diidana wuu iska tegi doonaa cid uu xoog madaxweyne ugu sii ahaan doonaa ma jirto doorasho uu xoogi doonaa ma jirto shacabku waa inay ka dhiidhiyaan maalin kasta uguma jiri kartaan waddooyin xidhan hooyo jidku umusha iyo aabba kala wareeg la leeyahay 4 sana ugu soo dulqaadanayn madaxweyne cafwan gudoomiyaha golaha baarlamaanka isaga wareejisu dalka doorasho uga qabto waad ku fashilatay doorashada dalka inaad dagaal iclaamiso besa ku dhiman waanad iclaamisay dagaal haddaba dagaal cid uga reyn doonto male cid ku haysan kartana male reer muqdishona waa yaqaanaan nin kursiga xoog ku soo kora sida loo buriyo waa yaqaanaan nin kursiga xoog ku soo kora sida loo buriyo waa yaqaanaan nin cashuurtooda qalad u adeegsada sida loo buriyo reer muqdisho maanta waa kaa diideen geed qaraar ayaa tahay madaxweyne xishoodkii waad garan weyday walaaltinimadii lagugu soo dhaweeyeyna waad garan weyday madaxtinimadii caafirin ee constitutionku ku ogolaana waad garan weyday madaxweyne inteenna wax garata iyo inteenna cashuurta bixisa iyo inteenna aqoonkaaga waxaan ku leenahay waad ku fashilantay hoggaanka maadaamood ku fashilantay dib u soo celi ayay ahayd 4 sano haddawse waxaan ku leenahay cafwan iska tag cafwan farmaad Pastor kita